Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhowaada meel walba aad joogtiin. Ramadaan kariim aan ilaahay saaxiibada dhammaan dunida dacaladeed intii ugu xiran. Ramadaankiina waa ogtiin waa iska mashquulnaa anagoo baryaan si kale iskaga mashquulneen. Maanta waxaan joogaa Arbaco meesha la yiraahdo wadada Jaayga oo ka imaato Hormuud ama laamiga ceelasha biyaha wadada ka imaato. Wadadaas boos saaran oo laba jidle ah oo siyaad bara ah waay. Waxaan yahay waa boos laba jidle oo siyaad bara ah. Booskan cabirkiisu waa 25 xitaa waxaa la booska nus hadaa waa loo kala qaadaa ma fahanteen. Marka dukumiinti siyaad bara waay. Waxaana lagu rabaa ugu yaraan 16 kun lagu rabaa. Dhulkan wuxuu joogaa 30 kun oo maray ilaa 25 kun oo maray. Hadda xitaa waxa waa wiil saaxiibana iskale. Marka isa xitaa wallahi dhulka miska gada laheene dan iyo daruuf wax la dhaaya jirto. Maanta ay soo baxay saaxiibkii oo ila shaqeeyaa. Marka niyow aadan u baahnaw dhee marka sidaas awgeeda u imaaday. Meeshaas u jeedin Jaayga waay. Beertan waa beerta cambaha waay. Arbaco intii la gaarin beerta cambaha lahaa dhulkaas kaga dhex jiro waay. Xaafadaas waa majeedo. Marka waa dhinacan iyo eriyada Arbaco Jaayga ceelka Arbaco waa kay ceelkaas waa zoomani soo dhaam jeedin ceelkaas waay maba dheeraba. Macnaha waxa waaye ceelka Arbaco wadadan Jaayga haddii ceelka wadada oo Arbaco dhinaciisa la furo ilaa jasiiradka. Marka dhulka wuxuu birima ka yahay wadada Jaayga oo birima ka yahay. Dhinac beerta cambahana waa saaraya. Wadadan Jaayga u jeedin oo birima ka yahay. Hadda waan tagaa wadada xitaa ilaa waxaan iduwaa shirkadda Hormuud Dooraale aan iduwaa saa u fahantiin muuqaalka. Wadadan ku socda leeyahay maba ka leexis baadi. Marka waa 25 waay waxa lagu rabaa 16 kun insha Allah haddii nus booska rabta xitaa 8 kun laga siinaa leey. Adi macnaha danta loo godo faan oo dadku xidhan waa la isku qaataa xaafadan waay ceelay leedahay. Marka ayaanta xoogo jiida iska jirmaan dhulkan waa isfur rabaa meesha hadda aan ku sheegan waa kana wadadan Jaayga aan joogo meeshan waa hadda kaamiradan ku hay booska oo dadka ay taagan waay. Hadda waa baxa marka baawarkan korina ilaa shirkaddan fiiriyana dhulkan wuxuu u jiraa ilaa ugu yaraan adiga laamiga wuxuu u jiraa ugu yaraan 4 kilomitir baracmal u jir kara ilaa 5 kilomitir. Hadda marka waa soo baxnay wadadan ku socon mujada oo wadadan oo birima ka yahay dhulka. Wadadan aan ku socon oo Jaayga ah oo birima ka yahay. Waana dhul aad iyo aad u fiican oo jaanis ah waay. Marka asxaabay waxa rabaa inay ka faa'iideysatiin soon waay. Soonka dhulka xitaa marar qaarkood waa raqiisaa sababtoo waxyaalo badan soo baxo. Marka waxaan leeyahay asxaabta laga faa'iideysto saaxiibada ugu xiran oo dhulka jaaniska wadadan hadda amrun mujada. Wadadan loo saaray ma ka leexaysa daad gadaal u noqono wadada birimo ka yaab laba jidle waay badal rabo. Waa laba jidle Jaayga u saaray waana birimo. Marka asxaabta soo dhowaada in horta laba jidle kala shaqeey jir laakiin birimo waay. Birimo waxa la wadooyinka dhulka aan wadada saaran bir wuxuu noqon karaa baqaar oo noqon karaa saano kala darbi la soo wareejiyo garaash laga dhigi karaa ama ganacsi laga dhigi karaa ama waxyaalo badan laga dhigi karaa. Marka waa dhul aad iyo aad u fiican waay. Wadadan weyn oo saarayaan waay. Marka kaamira waxa boos gulna ilmo yariisa socdeen marka boosaan gelnaa. Marka shirkadda Hormuudna waa tahay shirkadaas u jeedin arkoosiin waay. Soo dhowaada saaxiibada ugu xiran meel walba aad joogtiin muuqaalkan meel fog hala gaarsiiyo asxaabta kaleetana hala gaarsiiyo. Marka jaaniskan waa jaanis kale oo fudud dad inta badan soo weydiinay Jaayga ma laga ilaalay dukumiintigana waa dukumiinti siyaad bare waay. Marka wadadan waay. Marka asxaabta waa isfahmi karnaa saaxiibadii tihiin waan fahmi karaa. Ramadaan mubaarak ayaamaan waxa barnaamijyo sadaqadan bilaw rabnaa ka qayb qaata inta nagu xiran saaxiibada waxaan leenahay asxaabta soo dhowaada muuqaalkan waa kana shirkadda Hormuud Doolaalna waa kan shirkadda Hormuud waa taa oo Dooraale. Marka waa fahmi kartiin wadadan waay ilaa waxay tagay ceelasha biyaha. Nabadgelyo saaxiibayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhowaada meel walba aad joogtiin. Ramadaan kariim aan ilaahay saaxiibada dhammaan dunida dacaladeed intii ugu xiran. Ramadaankiina waa ogtiin waa iska mashquulnaa anagoo baryaan si kale iskaga mashquulneen. Maanta waxaan joogaa Arbaco meesha la yiraahdo wadada Jaayga oo ka imaato Hormuud ama laamiga ceelasha biyaha wadada ka imaato.
wadadaas boos saaran oo laba jidle ah oo siyaad bara ah waay waxaadan yahay waa boos laba jidle oo siyaad bara ah booskan cabirkiisu waa 25 xitaa waxaa leeyahay booska nus hadaa waa loo kala qaadaa ma fahanteen marka dukumiinti siyaad bara waay waxaana lagu rabaa ugu yaraan 16 kun lagu rabaa dhulkan wuxuu joogaa 30 kun maray ilaa 25 kun maray hadda xitaa waxa waa wiil saaxiibana iskale marka isa xitaa wallahi dhulkan miska gada laheene dan iyo daruuf waxa la dhaaya jirto maanta ay soo wax saaxiibkii waa ila shaqeeyaa marka niyow aad u baana u dheer marka sidaas awgeeda u imaaday meeshaas u jeedin jaayga waaye beertan waa beerta cambaha waaye arbaco inta la gaarin beerta cambaha lahaa dhulkaas kaga dhex jiro waaye xaafadaas waa majeedo marka waa dhinacan iyo eriyada arbaco jaayga ceelka arbaco waa kay ceelkaas waa zoomani soo dhaa majeedin ceelkaas waaye maba dheeraba macnaha waxa waaye ceelka arbaco wadadan jaayga ah haddii ceelka wadada oo arbaco dhinaciis la furo ilaa jasiiradka marka dhulka wuxuu birimo ka yahay wadada jaayga oo birimo ka yahay dhinac beerta cambahana waa saaraya wadadan jaayga ujeediin oo birimo ka yahay hadda waan tagaa wadada xitaa ilaa waxaan iduwaa shirkadda hormuud dooraale aan iduwaa saa u fahantiin muuqaalka wadadan ku socda leewaay maba ka leexiis bacdi marka waa 15 waaye waxaa lagu rabaa 16 kun insha Allah haddii nusboos ka rabta xitaa 8 kun lagaa siinaa leey adi macnaha danta loo godo faan oo dadku xidhan waa la isku qaataa xaafadan waaye ceelay leedahay marka ayaanta xoogo shiidaas ka jirmaan dhulkan waa isfur rabaa meesha hadda ku sheegan waa kana wadadan jaayga aan joogo meeshan waa hadda kaamirada ku hay boos oo dadka ay taagan yihiin waay hadda waa baxa marka baawarkan korina ilaa shirkadaan fiiriyana dhulkan wuxuu u jiraa ilaa ugu yaraan adiga laamiga wuxuu jiraa ugu yaraan 4 kilomitir baracmal u jir kara ilaa 5 kilomitir hadda marka waa soo baxnay wadadan ku socon mujada oo wadadan oo birima ka yahay dhulka wadadan aan ku socon oo jaayga ah oo birima ka yahay waana dhul aad iyo aad u fiican oo jaanis ah waay marka asxaabe waxaa rabaa inaad ka faa'iidaysatiin soon waay soonka dhulka xitaa marar qaarkood waa raqiisaa sababta waxyaalo badanaa soo baxo marka waxaan leeyahay asxaabta laga faa'iidaysto saaxiibada igu xiran oo dhulka jaaniska wadadan hadda amarun mujadax wadadan loo saaray maba ka leexaysa daad gadaal u noqono wadada birimo ka yaaba laba jidla waaba dil rabo waaba laba jidla jaaygo saaraya waana birimo marka asxaabta soo dhawaada in horta laba jidla kala shaqeey jir laakiin birimo waxa la wadooyinka dhulkaan wadada saaran bir wuxuu noqon karaa baqaar oo noqon karaa saano kala darbi la soo wareejiyo garaash laga dhigi karaa ama ganacsi laga dhigi karaa ama waxyaalo badan laga dhigi karaa marka waa dhul aad iyo aad u fiican waaye wadadan weyn oo saarayaan waa marka kaamir waxa boos gulna ilmo yariisa socdeen marka boosaan gelina marka shirkadda hormuudna waa tahay shirkadaas ujeediin arkosiin waaye soo dhawaada saaxiibada igu xiran meel walba aad joogtiin muuqaalkan meel fog hala gaarsiiyo asxaabta kaleetana hala gaarsiiyo marka jaaniskaana waa jaanis kaloo fudud dad inta badan soo weydiinay jaayga malaga ilaalay dukumiintigana waa dukumiinti siyaad bare waay marka wadadan waay marka asxaabta dee waa isfahmi karnaa saaxiibadii tihiin waan fahmi karaa ramadaan mubaarak ayaamaan waxaa barnaamijyada sodoqodan bilaab rabnaa ka qayb qaata inta nagu xiran saaxiibada waxaan leenahay asxaabta soo dhawaada muuqaalkana waa kana shirkadda hormuud doolaalna waa kan shirkadda hormuud waa taa oo dooraale marka dee waa fahmi kartiin wadadan waay ilaa waxay tagay ceelasha biyaha nabadgelyo saaxiib yaal